dowladii hore cabdi ilay inaynan ayadu dadka waxay u geysatay mooyee shacabna isdagaali jirin qof ay siyaasad u haysata mooyaane shacab la targeersado oo shilkantii lala dubay istaaga dabada laga dhacisay jiri jireen laakiin xukuumadaadan intii inay la dishay intii intaad adigu haysatay dhimatay waa ka fara badan ama iyadu haysalayso ama adigu aad leyside marka arrinkaas waxaan aad iyo aad uga xumahay madaxweyne inaad fahmin welina aad ceel u sii qabto oo saacadan la leeyahay go'doonka degmooyinka saaran iyo dadka saaran aad adigu istiil ku raaxaysanayso maalinku imanayay cagjar waxaan lahayn ciid baa isbedeshay orod baa idin dhashay laakiin hadda waxaan leenahay caaq baa noo kacay cudur baa noogu yimid halkii aanu ka suginay dowladana waa mid dadka isku dabaynaysa waa mid fidnadan dhigaysa waa mid marka laba nin iska dishaan ba 20 ka daba geynaysa marmarsiyo idinku marmarsoonaysa waa sida xaqiiqada markii shan la dilo nagoo ka gubiyoonayno oo kii dhintay geeridiisa ka gubiyoonayno in lix kale dowladdu disho haddana wada cidla ay qaadaan colaadan markasta ay soo noqoto waa markasta oo isbedel siyaasadeed deegaanka la rabo inuu ka dhacno ka xunnahay in ciidankii qaranka ee dadkan loogu talagalay inay badbaadiyaan ee dadka loogu talagalay amnigooda inay sugaan in ayagii loo adeegsado waxaa nasiib darro ah saacadan hadda kula hadlayo degmada Wardheer ilaa degmada Lehelo ilaa degmada Daratoole Danood iyo qabilayaasheedaba gaariyaasha qoryaha shilkaha iyo dhashiikayahu saarayeen boqol way ka badan yihiin waxaad moodaa Daacish iyo Al-Qushaash iyo anfartiin la dagaalana gooni ah ayaad gobolkan ka leedahay aaminsanahay waxaana nasleenay barnaamij siyaasadeed weeyaan in dadka deegaanka degan ee wada dhashay la isku mashquuliyo oo deegaankan dad kale la soo dajiyo ayuuna Bismillahir Rahmanir Rahiim Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka hore awalan waan idinka mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah disiisaan Warsan TV adiga iyo asxaabta tiimka shaqada inta kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo runtii xanuun badan oo ka dhacday gobolka Doolo dowlad deegaanka Soomaalida dhacdadaas oo ah dhacdo inta badan soo noqnoqotay runtii oo laba qoys oo walaala dhex marisay muddadii u dambeysay runtii hawshaas marka ugu horeysay awalan waan ka tacsiyaday in labadii qoys ee walaalaha ahayd wixii kala gaaray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahayna bedel khayr qabo ha ugu bedelo dadka walaalaha dhibka kala gaaray waxaan ugu baaqayaa marka inta kadib kulley waxaan isleeyahay haddii boqol la kala diliyo haddii laba boqol la kala dilaba inta soo hadhama isku ooyi doontay inaan nabadda aan lagu doorsanin cadaawad iyo xumaan intaas si guud baan u leeyahay labadan qoys ee walaalaha ah runtii inaan TV-gan soo booqdo maanta waxaa igu kalifay waraha waxaa jirtay hadda ka hor xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa jirtay waana xadiis waraha ma aha intaas oo iga dhacday xadiiskaas nabiga calayhi salaatu wasalaam nin yahuudi ah ayuu deyn ka qaatay deyntii markuu ka qaatay maalmaha ka mid ah ninka waliba waxaa lagu sheegay inuu ahaa caalimkii yahuudeed asoo suuqa maraya nabiga calayhi salaatu wasalaam beeca la galay xilligii uu deynta ka qaatay muddo la galay inuu suuqa ku dhex qabsaday uu dhahay intuu go ku ciijiyay deynteedii baan kaa rabaa Umar bin Khadaab ayaa seef la baxay nabi Allah igu fasax ninkan dilay nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam u kaada Umarow seeftaadan galka ku ceesho labadanaduba intaa waxaan hayn baan kaaga baahan inaad anigana idhaahdo nabi Allah deynta iska bixi asagana aad warmudadii ma gaadhin nabi qabsan calayhi salaatu wasalaam waxaan uga socdaa labadan qoys walaalaha ee istilay ee isku soo noqnoqday ee marar badan soo noqnoqday markii ay dib kala gaadhaba dowladda ayaa soo kala dhex gashay meeshii ay dhiigii daadanayay ayadu daba qaban lahayd yay intii iska dileen laba jibaarkii saddex jibaarkii ayaa iyadu dishaa waxaan ognahay hadda shalayto in lagu xasuuqay magaalada Bilcildheere ilaa Qorile inta u dhaxaysa dad rayida dadkii tuulada Bilcildheere joogay especially u fara badan ilaa 8 qof ah ilaa hadda galabtadan dhaawacoodii xidhka laga soo gurayo dowladuna ay leesay dadka shacabka
iyadoo le waxaan rabnaa inaan dhiig baajino ay dhiiggii daadan iyo ku ka fara badan ay daadisay. hawsha runtii wax magarad baa ka shaqeeyay maan leenahay, dowladdana waan ku cambaaranaynaa. mustafa maxamed cumar aad iyo aad baan hankii aan kuu qabnay runtii madaxweyne aad uga soo kordhacday. waxaan leenahay arrinkaas arrinna qabta ma ahayn, arrin bulshada doollo ay u baahnaydna ma ahayn. markii koowaad ee dhiiggaas dowladdu daaysa ma aha. hadda ka hor colaadani mar dad la laayay oo dadkii shalay ay dowladdu laysay dadkii ka soo horjeeday ee marka wax kala gaadhan ay laysay yaa iyadana sidaas si leeg 12 qof ka dishay. labadan qoysna laba qoys oo wada dhashay weeyaan oo walaala Ismaaciil Mucali Ibrahim. kii dhintaba guriga tacsidiisu labada guriba way taal. runtii aad baan nooga xunnahay. waxaan leenahay marka arrinkan dowladda annagu waxaan aaminsanahay dadkan isma leen jirin, horeyna isma leen jirin, waxa hadda ku cusubna inay dowladdanu ka dambayso. xaqiiqada jirtaana taas inay dowladdani ay ka dambayso. haddiina ka dambeyn colaad 8 sano socoto oo dadkii markuu isdilaba bila kadib markuu jawaadana isku soo noqonayo oo aan xal laga gaadhinin, waxaad dareemi karaysaa inay dowladdu arrinkaas ay ka dambayso. sababaha ugu dambeysana waan raacinayaayo dadku markuu islaayo haddii dowladdu soo kala dhexgasho dhexdhexaad ah, guurti bay leedahay, waxgarad bay leedahay, salaadiin bay leedahay. arrinka labadii qoys ee isdilay ayagaa ismaydha. dhaqan Soomaaliyeedna wuu ahaan jiray oo inay intay wada hadlaan meeshii dhiig ku daagtay dhareer hinjir meesha ku daad xalli jiray dhareer baa la dhigaa. ay wada hadlaan hadday duu kala qaadanayaan iyo hadday diye kala qaadanayaan, hadday isu dilanayaanba waxay ku heshiiyaan baa wax lagu dhamayn jiray. waxaad ogtihiin hadda ka hor mar sidanoo kale rag u dhintay in ummadii Soomaaliyeed ee gobolka Doole deriska la ahaa oo loo eeginin qabiil qoys walbaba le Soomaali ilaa iyo gaashaamo oo ka tirsan gobolka Dhagaxbuur, dig oo ka tirsan Dhagaxbuur, marsin oo ka tirsan Qabdi Dahar, Kudumbuur oo ka tirsan Qabdi Dahar, degmada Qabdi Dahar gudaheeda ilaa Shilaabo oo Qabdi Dahar. todobada degme ee gobolka Doole u leeyahay inay dadkii deganaa ee Soomaalida ahaa oo qoys walbaba leh ay u yimaadeen inay labada qoys walaalaha dhexdhexaadiyaan. dowladda diiday. gooshii fidsanayda waxgaradka iyo uqaash iskugu timaaday dowladda diiday. wati anaga ayaa dadkan dowladda anaga ayaa xalinina. waxaad ogtiin ilaa alaanadan dhiigii maalinka daadashadiisa bilowday inuu ilaa hadda daadanayo. waxaan leenahay mudane madaxweyne runtii dana gooni ah ayaad gobolkan ka leedahay saan aaminsanahay. waxaanan isleenahay barnaamij siyaasadeed weeyaan in dadka deegaanka degan ee wada dhashay la isku mashquuliyo oo deegaankan dad kale la soo dajiyo ayuuna dantaadu tahay. waa sida xaqiiqada markaan fiirino. fikraddaana fikraddii aad ku hadashay nationality aad ku hadashay weeyaan saan anigu aaminsanahay. caqliga iyo cuqaasha ummadda deegaanka degta especially dadkan islaynayana ma fahmiyaan ayagoo ku fahansanaana waqti ay ku qaataan oo ku xalistaan arrinka u yaala lama siinayo. waxaan leenahay mudane madaxweyne dadkan adaa u madaxweyne dowladdaada ayaa xukunta. waanu ka xunnahay in ciidankii qaranka ee dadkan loogu talagalay inay badbaadiyaan ee dadka loogu talagalay amnigooda inay sugaan in ayagii loo adeegsado. waxaa nasiib darro ah saacadan aan hadda kula hadlayo degmada Wardheer ilaa degmada Lehelo ilaa degmada Daratoole, Danood iyo qabilayaasheedaba gaariyaasha qoryaha shilkaha iyo dhashiikayahu saaran yihiin 100 way ka badan yihiin. waxaad moodaa Daacish iyo Al-Qushaash iyo anfartiin la dagaalamayo. laba qoys oo Iiraan shacab ah oo istagaalay oo haday dowladdu rabto inay kala qaadato si kale iyo maamulka iyo dadka matali iyo odayaal dhaqameed iyo si waxgarad baa loo soo diri lahaa. ma ciidan intii la geliyo in ciidan lagaga bixiyo haddana. waxaan leenahay mudane madaxweyne arrinka waad ku khaldantay. waanan cambaaraynayna in dadkii shacabka ahaa ee adiga ku doortay ee lagu idmaday amnigooda inaad ayaga ku soo gorniyooto oo dhashiki iyo shilka la dhacdo. aad iyo aad baan uga xunay arrinkaas. intaas waan aad baan uga xunay, waan dareensanahay. waxaanan runtii in badan lagu soo celceliyaa dowladdii hore ee Cabdi Ilay inaynan ayadu dadku waxay u geysatay mooyee shacabna istagaali jirin. qof ay siyaasad u haysata mooyaane shacab la targeersado oo shilkantii lala dubay istaagay dabada laga dhacisay jiri jireen. laakiin xukuumaddan intii inay la dishay intaad aad u haysatay dhimatay waa ka fara badan. ama iyadu haysalayso ama adigu aad leeysiday. marka arrinkaas waxaan aad iyo aad uga xumahay madaxweyne
inaad fahmin welina aad ceel u sii qabto oo saacadan la leeyahay go'doonka degmooyinka saaran iyo dadka saaran aad adigu stiil ku raaxaysanayso intaas waa inta labaad waxaan baa u dirayaa labadan qoys wada dhashay Ismaaciil Gumacadle iyo Ibrahim runtii aqligu ha shaqeeyo maanta maalin aan ahayn bad isweydiin doontaan maanta maalin aan ahayn bad fahmi doontaan maanta maalin aan ahayn baana god kale idinku wadaad garan doontaan waxa xaqiiqa dad maanta iyo beri damaba isleeysan labada qof ee isku soo hadhay labada qoys ka soo kala jeedo inay isku ooyi doonaan beri oo isu tacsiidan doonaan beri oo guri walbana laga dareemiyo xanuunka yaala iyo geerida taal waxa islaynayna wali abtigiin waxa islaynay waxa agoontoomiyana gabadh iyo hooyadeed yihiin laga yaabo gabadhna inay wiilkeedu dhinto hooyadiina ninkeedu dhinto isku qoys ka soo wada jeedaan waa geeri xanuun kulul naguna haysa ceeb iyo calaf la'aan waxaan leeyahay wax garadka ugu horeysan salaadinta Suldaan Cabdiraxmaan Dulane Suldaan Rabiic Tahar in aqligu shaqeeyo dhiigan daadanayana xal lagu bedelo halkaan idan ka sugin dawlad idan ka sugin cid kale idinku aad la timaadaan oo badbaadisaan dhiigan daadanaya wax ka fog dad idinka shisheeya oo idinka fog baad istigaali jirteen xal la kala gaadho way jirteen halka aad kala gaadhaan ilaa hadda aad nabadooda ku daaqasaan qoys aydan deegaankaas degan oo dadkaas ayna isu soo argin ma jiro qoys ay maanta colaadii waagaas bilaabatay ilaa hadda isu qaban ma jirto sabab ay laba walaalo oo colaadooda ilaa 8 sano oo socotana waxaan aaminsanahay mashruuc aan dhamaanin oo laamigii la qoday ilaa hadda barigo leh oo kale inuu yahay arrinkaana arrin aad dawlad uga daba fadhiisataan inuu noqdo ma qaba runtii dawladana waa mid dadka isku dabaynaysa waa mid fidnadan dhigaysa waa mid marka laba nin iska dishaan ba 20 ka daba geynaysa marmarsiyo idinku marmarsoonaysa waa sida xaqiiqada markii shan la dilo noo ka gubiyoonino oo kii dhintay geeridiisa ka gubiyoonina in lix kale dawladdu disho hadana wada cidla ay qaadaan waa wax aad iyo aad looga xumaado aqligu ha shaqeeyo uqaasha gobolka doolo ilaa doh haleen aqligiinu ha shaqeeyo cid idin la dhalatayna male ka geeriyoodiyana waa idinka ka laga daba geyniyana waa idinka intay goorta wuxuun idinka noolyihiin kulliba ku heshiyaatiina heshiya intaas aan leeyahay waxa kale oo halkan rabaa inaan ayana ka ifiyo kulliba maamulkan asaga laftirkiisu masiibada qaybta ka ah haduu wuxuun fahmiya aan rabaa inaan ka daba geeyo colaadan markasto ay soo noqoto waa markasto oo isbedel siyaasadeed deegaanka la rabo inuu ka dhaco especially gobolkan doolo waxaan ognaynaa iminka doorasho laga soo baxay doorashadii laga soo baxayna hadii ilaa heer madaxweyne la doorto in ilaa heer gobol ilaa heer degmo ay gaari doonto gobolkana sidoo ogtiinba waayihii dambe wuxuu noqday gobol aan Soomaaliyana ahayn Ethiopiana ahayn wuxuu noqday meel cid walba leedahay wuxuu noqday meel cid walba ay amarkeeda ka fushan karto saan ognahay dawladii dhexe Soomaaliya burburtay wuxuu la wadaagaa xuduud aad u dheer oo lagu qiyaasi karo ilaa 1500 kilomitir square inuu la leeyahay ilaa cidhifka aan dhaho ilaa wuxuu la leeyahay xuduud gobolkan Togdheer xagan ilaa iyo Hiiraan inta u dhaxaysa xuduud buu ka leeyahay waa gobolka ugu xuduudda dheer Soomaaliya waxa ka jira waan ognahay dadkii markay iyagu soconaan dadkii dariskana la ahaa ee xuduudda wadaagnay wax garadkoodii iyo dadkii wax galka ahaa qofkii wax geystaba uu qofku wax galka ugu aariyo dadkii wax galka ahaa iyo dadkii la dhashay waxay dhahan meesha aan amni moodina aynu galo meesha la soo galay wardheer bi noqotay habar walba dhasha dhigata si loo soo galo oo loo dareemin soo galootigoodana waxay noqotay dadkii loogu yimaado in la isku mashquuliyo laayna labadan qof isku isdiliya labadan qoys isdiliya labadii deegaanka loogu yimaado weeyaan haday ayagu heshiis yihiin tooshkoodu wuxuu qaban lahaa dadka soo degiya ee maalin walba soo imanay sifa loo mashquuliyo mashruuc dheer oo akoonkiisu ilaa buurta yaalo oo dadkan in la rabo in lagu bar intay isku mashquulsan yihiin ayaga biyo hoosta laga soo galiyo inuu yahay aaminsanna sababtaana qofka NGO-ga ee u fadhiyana waa ninka barisaabka gobolka doolaka qofka u fududeynaya ee arrimahan oo hadda wata u sii fududeynaya ee gacan yaraha waa ninka degmada joog labada nin ee shacabkan masaakiinta ee wada dhashay dilaaliya nayntaga waxaan leenahay marka waxa hal dib loo fiiriyo dhacdo kasto oo dhacda waxay ku soo aaday xilli la rabo in isbedel uu ka dhaco gobolka ama maamulkiisa la rabo in la farageliyo runtii arrinkaana inuu aan la fahmi waayo oo dadka wuxuun aqliga leh
ay fahmi waayaan aad baan uga xunnaa iyadana waxaan leenahay arrinkaas dib ha loo eego dowladdana waxaan ugu baaqinaa dowladdu waxaad ku tihiin shacab inaad heshaan haddaad shacab weydaan dowlad ma noqonaysaan dowladaan shacab lahayn shacab ma shacabaan dowlad lahayn shacab ma noqonayo waa isku nool dadka qofka ritaayarka qofka dhinta meeshuu ka imanaya beertaydina waa shacabka shacabkii noocaas haddaad idinku aad la dhex gashaan oo dhashiika madaxa kala dhacdaan ma noqonayo xal waxaan uga baahannahay dowladda kan socda aan ahayn oo dhiig ku bedel aan ahayn waxaa la dhahaa soomaalidu mahmaahaha inta badan been way sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo in yar waxaan halkaa ka leeyahay waxaa la dhahaa dibiga lo-da ka dhashay hadduu lo-da dibiga wax walba waxay leeyihiin wax qoor bay leeyihin lo-da dibiga ka dhashay waxaa leeyihi urtu ku kiciya dibiga aan ka dhalanina kayda ku jiran gees ku kiciyaabaa leeyihi waxaan aaminsannahay dowladdanu inay dadka ay noo soo diriso maaragtay gobolkaas ay u soo diriso ilaa buurta jooga inay geeska nagu kicinayaan anu wax kale ku dari mahay geeskaad nagu kicinaysaan hadday danqasha idinku jirto ood innaba jiir la wadaagtaanna inaynu arrinkaasu dhaceen baan u malaynaya isku maalinkaad soo gashan bayna fidnadana nagu bilaabatay intaasaan ka leeyahay in yaroo kale waxaan rabaa inaan ka dabadho hadal baraha bulshada shalay aada u qabsaday oo dad cadhaysan oo daymeed u yaalla ay dhaheen oy qabiil ka mid a qabiilada soomaaliyeed ku soo hadal qaadeen khaasatan qabiilka la dhaho reer isaaq oo loo maaragtay aanaynaya madaxweynaha nin aan arkay inuu xitaa xilihiis ku furay uu leeyahy waan idinka aana gudanina bilaa calaykum sameyn baa idinku xidhan raalli ahaada ninkaasu wuxuu yahayba waan ognahay annagu reer isaaq walaaltinimo iyo wanaag iyo deris wanaag baa naga dhexeeya laakiin ina cagjar godobtiisu asiga keligii bay ku tahay nin cadhaysanna dee wax walba u dhig hadduu naag furo iyo hadduu wax walba sameyn way ka timaadaa nin 7 meedu hoos yaallo waa dhaqan soomaaliyeed bay ahaan jirtay inuu qofkii markaa uu isleeyahay arrinka buu ka dambeeya inuu la kaco tolkayna waxaan leeyahay sameyntaas waa idinku xidhan laakiin maalinkuu imanayay cagjar waxaanan lahayn ciid baa isbedeshay orod baa idiin dhashay laakiin hadda waxaanan leenahay caaq baa noo kacay cudur baa noogu yimid halkii aanu ka suginay caafimaadka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu